madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya wafdi uu hogaaminayo oo maanta soo gaaray dalkan Djibouti oo ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha dalkan Cabdulqaadir Kaamil Mahdi ayaa ka qayb galay daahfurka aaga caalamiga ganacsiga xorta ee dalkan Djibouti laga hirgeliyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa khudbad uu ka jeediyay furitaankii goobtan ka caagan canshuuraha ee dalka Djibouti waxa wax lagu farxaa ku tilmaamay in Djibouti ay hogaaminayso isdhexgalka dhaqaalaha ee bariga iyo geeska Afrika maanta waa maalin taariikh ah waa maalin weyn oo aan marxaati kulligan u nahay furitaanka free trade zone-ka Afrika ugu weyn alxamdulillah inay noqoto Djibouti waxa weeye waa waxa kaliya oo aan isleeyahay keeni kara nabad iyo barwaaqo iyo deganaansho xasilooni siyaasadeed waxay tahay inuu dhaqaalaha isdhex galo oo uu dhaco economic integration maantaan aan joogno ma aha waxaan arkayno wax accident ah wax shil ah ma aha waa wax galay waqti badan iyo shaqo badan iyo vision iyo hoggaan wanaagsan oo walaalkeen Ismaaciil Cumar Geele ah taas oo iyadana ku timid wada shaqayn guud ahaan dadka reer Djibouti oo hoggaankooda wanaagsan si maaragtay u daba socda oo ula shaqeeya waxaan arkaynaa in ummadda reer Djibouti ay diyaar u tahay horumarka dhaqaale oo kulligan ku taaminayno inay ka dhacdo geesta Afrika jamhuuriyadda aan walaalaha nahay ee Djibouti ayaa ka faa'iideysanaysa halka ay uga taalo gobolka iyadoo marti gelinaysa maalgashi caalami oo ka imaanaya dalalka hormaray Cali Baashi Cabdullaahi magaalada Djibouti ee wadanka Djibouti